liibaan waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waana wiil isagu dhagaha naafa ka ah oo aan waxba maqlin liibaan waxaan si kadisa ugula kulmay mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Boorama liibaan oo teleefankiisa gacanta isticmaalaya isla mar ahaantaasina ku sheekaysanaya liibaan wuxuu sheegay inuu isticmaalo adeegyada kala duwan ee baraha internetka sidii uu yahay Facebooka imada WhatsAppka iyo Fiberka inuu intaba u isticmaalo dadka iyagu dhagaha waxa inta badan ku sheekaystaan alifbeetada gacmaha iyaga oo faraha inta badan iska fahma ama calaamadaha faraha iska fahma liibaan intii aan la joogay waxa aan weydiiyay bal in uu afdhagool igula hadlo aniga oo marka dambe turjumaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa liibaan waxaan joogaa magaalada Boorama oo aan deganahay waxaan aad ugu faraxsanahay in ay muuqaalka maanta adiga duubto waxaana sidoo kale aan ku faraxsanahay inay maanta yimaadaan dadka iyagu dhagaha qaba iyo kuwa aan iyagu dhagaha qabin sida ay isku dhaxgalayaan oo ay u wada sheekaysanayaan waxa aan iminka la xiriirayaa qof kamid ah saaxiibadeyda oo isagu jooga dalkaasi Djibouti oo aanu ka wada xiriirno Facebooka hadda daawo qaabka aan ula hadlayo si kastaba ha ahaatee dadka iyagu dhagaha ee ku dhaqan magaalada Boorama ayaa isugu jira kuwa iyagu jaamacadaha dhigta qaarkoodna ay jaamacadaha dhameeyeen oo aanay shaqaynin intooda badan luqadda Soomaaliga ma yaqaanaan balse waxay ku hadlaan luqadda Ingiriiska ama alifbeetooyinka ABCD-da ay ka mid tahay hase yeeshee dadka dhagaha ayaa inta badan waxay yihiin kuwa aad magaalada Boorama ugu badan qaarkood dugsiyada sare dugsiyada hoose ayay wada dhigtaan balse intooda badan waa kuwa qaarkood ka xogsada magaalada Boorama gudaheega waa nuuxkadiye magaalada Boorama